Asalaamu calaykum. Soo dhawaada. Barnaamijyadeena taxanaha ayaan halkii kasii wadaynaa. Maanta waxaan kasii hadlaynaa shirkadda caanka ah ee loo yaqaano Microsoft. Waxay ballaarin weyn ka wadaa AI modelskeeda. Shirkadda waxay sii ballaarisay maadooyinkeeda ama modelskeeda AI-da si ay ula tartanto shirkado kale ee hormuudka ka ah AI-da. Shirkaddu oo soo bandhigtay adeegyo cusub iyo adeegyo AI oo loogu talagalay horumarinta software-da ama software development-iska loogu talagalay ayay soo bandhigtay ganacsiyada iyo isticmaalayaasha guud. Qodobada ugu muhiimsan ayaa ah in Microsoft soo kordhiso tiro oo maadooyinka AI-da oo laga heli karo adeegyada cloud-ka laga heli karo ayay soo bandhigtay. Waxaa la xoojiyay qalabka AI-da loogu talagalay barnaamijyada sameeyaasha ama developerska loogu talagalay ayay sidoo kale ay soo bandhigtay. AI-ga ayaa si qoto dheer loogu dhex daray adeegyadii oo loogu yaqaanay Microsoft caan ku ahayd sida Office-ka, Windows-ga iyo Azure ayaa lagu sii daray. Shirkaddu waxay maalgelin dheeraad ah ku samaysay sidoo kale cilmi baarista AI-da iyo kaabayaasha xogta ama data centers-keeda. Sababo badan ayaa loo fiiriyay muhiim ahaanshaha barnaamijkan AI-da. Ganacsiyada waxay helayaan hadda doorashooyin badan oo AI ah oo ku dhisan karaan adeegyadooda cusub. Developerska ka shaqeeya shirkadda waxay si fudud u abuuri karaan hadeertan barnaamijyo iyagoo adeegsanaya AI-da u fududeynayso isticmaalka AI-da. Tartanka u dhexeeya Microsoft, OpenAI, Google iyo shirkado kale ayaa sii kordhaya sidoo kale. Marka waxaan soo gabagabeynaa Microsoft waxay si joogto ah u ballaarinaysaa hadeertan awoodeeda AI-da ama garaadka macmalka si ay u noqoto mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu waaweyn ee garaadka macmalka ee AI-da loo yaqaano. Tani waxay muujinaysaa in mustaqbalka software-ka iyo adeegyada cloud-ka ay si weyn ugu tiirsanaan doonaan AI-da. Waxay ahayd wixii kasoo kordhay isbuucii la soo dhaafay iyo Microsoft iyo barnaamijyadeedii iyo doonitaankeeda ay rabto inay hormuud u noqoto horumarada laga sameynayo AI-da. Aad waa mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fikirkiina kulley commentiga igula wadaaga. Aad waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.